magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay taariikhda iyo hogaamintii qofnimo ee lahaa Allah u naxariistay General Jaamac Maxamed Qaalib Jaamac Yare oo kamid ahaa siyaasiyiinta iyo qorayaasha caanka ka guud ahaan deegaanada Soomaalida oo 26 bishii Abriil ee sanadkan 2022 ka geeriyooday waxaana kulankaasi ka soo qayb galay hoggaanka sare xisbiyada mucaaradka mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda siyaasiyiin aqoon-yahan iyo marti sharaf kale waxaana si mugle looga sheekeeyay taariikhda dhinacyada badan ee lahaa Allah u naxariistay General Jaamac Yare waxa aynu dooranay inaynu haldhabaalayno in kamida ehelkii qaraabadii saaxiibadii nololeed kuwii shaqo kuwii aqooneed iyo kuwii sooyaalkiisa taariikheed xiiseynayay ama daliilayay da'da doonaan baha ku sugnaadaane waxaynu ilaahay uga rajaynaynaa maadaama inaga hooseeyo inuu naxariistiisii janno ka waraabiyo acmaashiisii uu qabtayna ilaahay mid khayr leh oo aakhiradiisa wuxuu ka tartaa inuu ka dhigo qof naftiisa ka adagayo haa ilaahay u naxariistee waxaan xasuustaa sida uu naftiisa u adkaa waxay ahayd dadka ay ishayaan ama aaraad ku kala duwan yihiin sida haddana xormadooda ugu ilaalin jiray jaamac markaa kula wareegay blaiskiina waa la qoray saajin baa lagu qaatay isla markiiba wuxuu u dallacay inspector 1907 kiin wuxuu tegay waddanka Ingiriiska halkaasuu tababar ku soo qaatay wuu soo noqday jaamac xoogaa muddo markuu joogay haddana waxaa loo diray tababar wuxuu tegay si uu af Ingiriiskiisa u sii siyaadsado wuxuu tegay dugsigii Sheekh halkaasuu af Ingiriiska ka dhigan jiray wuxuuna ii sheegay ragga uu macallinka ahaa beriga ah inay ka mid ahaayeen Cumar Carti Qaalib ilaahay ha u naxariistay iyo Xaashi Cabdalle nin oran jiray isaguna safiiro ka ahaan jiray Soomaaliya Allah ha u naxariistay kolkii ugu dambeysay noloshiisana jaamacad ayuu ka ahaa professor jaamac khidmadda hadilmay maxaa bulshada meel aanu ka galin ma jirto sidiisaba cilmigan hadilmay maxaa poliisku waxa weeyaan cilmiyada runtii dadla dhaqanka ugu muhiimsan bulshada markay noqoto hadilmay shaqo oo ah jaamac Allah u naxariistay qof isagu aan helin waalid iyo cid wax soo barta oo noloshiisa halka ka soo kaabta isaga ayaa wax isbaray isaga ayaa sameeyay dadaal dheeraada oo noloshiisa ilaa iyo intii uu ka dhimanayay mar walba ahaa qof madaala ah oo qadiyad leh jaamacna wuxuu ahaa ilaahay naxariistii jannaha siiyay oo hadday inuu jiilalka dambe ka baranayaan ay tahay inay ka bartaan waxa weeye nin qoyar socda geesiya sirdoonka iyo intelligence-ka waxaan la yidhaahdana aad ugu khabiira oo waxa uu samaynayo iyo waxa uu sheegayo isagoo mid ka tegay haddana aan la daadaynin uu ahaa walaas ninkaas waxay la tahay wax weyn boqortay laakiin dadku badankooda ma oga taariikh weyn buu lahaa halkan ka u lahaa taariikh weyn buu lahaa maxaa dadkaas ku maxay leeyihiin wixii soo dhan wada sir bay ahaayeen nin horta ninku laba shay buu ahaa dadku aanay kala mid ahayn wuu sir badnaa waan go'aan adkaayo meeshu qabsado ma sii day jirin wax kastaaba hadday dhacaan laba arrinoo aan dadka kale aan lahayn buu lahaa halkan waxaad ka arkaysaa ilaahu naxariistay generaalku inuu shaqadiisa maaha taxafiiskuune taa kale public iyo struggle uu isagu ku dhiiso wax samaynayo aniguna recruitiska kuwa la recruit gareeyay ayuu ka mid ah in shakhsiyadan aynu ka hadlayno iyo dhaxalku ka tegay la weeleeyo oo la micneeyo oo qofba dhinac ka joogsado deedna laga faa'iideeyo intaas ayuunbaa ugu muhiimsan dabcan haddaan sidan oo kale la yeelina taasoo kale bannaanka usoo bixi mayso runtii marka la eego halgankii SNM iyo tii horeba contributionka uu ku lahaa waxay ahayd la yaab ilaahay ha u naxariisto team worker buu ahaa oo wuxuu lahaa rag buu ku xidhnaa qiimo leh oo mabaadi' leh nin buu ahaa committed ah oo geesinimadu ay bannaanka soo dhigtay anigu 17 ayaan laba yar xamar u baxsan
ninii abtiyo dhintay oo qadiimi la oran jiray allah yarxamo dadna jaamac markaasaan arkay igu horreysay dad badan oo ehela cumar carte qaalib axmed maxamuud siiraan iyo dhiijiye badan wasiiro badan madax badan ayaa markaa xamar joogta hargeysa iska gataan loo hayne waxaa laga baran karaa marxuumka wuxuu ahaa allah yarxamo qof wuxuu ahaa ku dhowrsoon waxa uu doonaya inuu discipline buu ahaa highly discipline buu ahaa anigu yaraantii kadib Nairobi anoo fasax u tagay baan guriga Faayisa isugu nimid anna bil baan joogay isna xamad buu ka yimid marka waxaa la yaab jiray yacni routiinkiisa dailiga ah sida u qorshaysnaa marka waxaa laga baran karaa maareynta waqtiga dhalinyaradu waxay ka faa'iideysan kartaa maareynta waqtiga marka aan jaamac waxaan rumaysanay kulley Somaliland iyo deynta nimka joogta kulley fair ka noqon mayso historygiisa oo because inagu waxaynu hadii goornay dadka caadifada ku shaqeeya dadka principalka aad u eega manihid laakiin ana waxaan rumaysanahay in waqti dambe aad loo garan doono wax shakhsigu ahaa mabda uu ku shaqeyn jiray halka uu taagnaa iyo waxtarka badan uu geystay jaamaca muddo dheer baan imika muddo dheer yaan meel walba isla marin nin aad u digtoon oo very cautious wax walba ka ah ayuu ahaa wax badanna waa laga bartay xasuusta ugu weyn aan ka baranayna waa maxay inuu ahaa number 1 family man inuu ahaa qof u wanaagsan maxaa la yiraahdaa reerkiisa u wanaagsan inuu ahaa gudoomiyaha xisbiga Ucud injineer Faysal Cali Waraabe iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo gabagabada halkaasi ka hadlay ayaa ku sifeeyay marxuum General Jaamac Yare inuu ahaa shakhsi karti iyo hogaamin laga baran karo jaamac ahaa nin aad iyo aad u firfircoon isna waxna isbaray self made ahaa laakiin la dhaxaysa jaamac qaalib waxa laga baran karaa in qofka wax xidhaani jirin waxa laga baran karaa jaamac isku kalsoonida uu naftiisa ku qabay waxa laga baran karaa sidii la sheegay sidii waqtiga u qorshaystay intii uu noolaa waxa qof wax taraya bulshadiisa markasta Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber